gurigan waa cidlo agoontii deganeed maanta waxa ay soo aasayaan hooyada dhashay oo lagu magacaabo Faaduma Cali Cismaan oo ku magac dheer Faybeeso oo askari daris la ahaa oo dhowr xabadood ku dhuftay kadib markay isku dayday inay uga dacwooto askarigaasi sargaalkii uu ilaalada u ahaa sidaasna waxaa ku dhacay dilka xaafadda Xoosh ee degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir dhimashada hooyadan waxay ka noqotay mid xanuunkeeda laga dareemay maadaama lagu xasuusanayo hooyadan daris jacayl iyo shaqadii ay u kalihi jirtay gurigan had dadku ay hortaagan yihiin waa gurigii hooyo Faadumo oo ah guriga ay deganeed gurigan kale aad u jeedaan oo dhabarkayga ku yaalana sidoo kale waxa deganaa dadkii dilay hooyadan masaakiinta ah oo korsanaysa carruurta agoonta ah waxay doonaysaa inay u dacwooto waxa deganaa qaar kamid ah ciidamada dawladda markay u dacwo maagtana waxa lagu dilay iridaas hore saad u jeedaan oo dhiigeedu maamada waxa uu yaalaa halkan isla markiiba waxa lagu dhuftay xabado halkan ay ku dhacday saas ay ku dhimatay meeshan waa halka ay ka baxeen marka askarta dilka geysatay ay hubsadeen dhimashada hooyo Faybeeso qaar kamid ah ehelka hooyada muruqmaalka ahayd ee la dilay waxay ka hadleen waxa ay ka yaqaanaan halganka Faaduma Cali Cismaan ay ugu jirtay korinta agoonta ay dhashay oo ay barbaarintooda kali ku ahayd maxay tar waa walaashay ahayd taliyaagan kugu dacweynaa oo xabad ugu dhiftay ninka waardiyaha Allah u naxariisto xaqeedana waxaan ka rabnaa dawladda inay u soo dhiciso ninkina waa fakay hadda iyadana waa la soo aashowhaa Allah u naxariisto dawladda waxaan ugu baaqaa inay gacan ku dhiglaha soo qabato maxay ka dacwoonaysay ilmaha jidka maraayo xabad qorshaan ku dhadhaha war ilmaha saas xayeelin maxaa ka galay taliyaagan ku sheega iridi waatana uma dheera waataas dhiigeeda ciid lagu shushubay iridi intayna jugsiina baasoo ku furay caloosha kili iyo minka saddexdaas meel ka dhaawacan aqoon waxaan u leeyahay aqoon badan aan u leeyahay gabadheeda iyo wiilkayga isqabo maamo wanaagsan ah ilaa xad maamulka degmada macala madaxweynaha iyo wasaaraha kulli oo ummadda oo muslimiinta dawladda oo dhan waxa ku codsanayna maamadan xaqeeda in loo soo dhiciyo waa la gardaran yaa gardara lagu dilay ilaahay ala cabsada agoon leeyahay ilmo yar yar u shaqeysay xoogsatay gardara lagu dilay wixii dilay ha loo soo qabto xaqeeda u baahan tahay loo soo dhiciyo sagaal caruuray guriga ku haysatay awal caruurteeda u shaqeysan jirtay sanadadii hore laakiin hadda 2 sano iyadoo shaqeynayaan aan bartay guriga in laba ilmo agoon ay haysataa kuwa kale waxoogaa 2 caruur oo yar oo mid agoon ay haysataa kuwa kale way ka waaweyn yihiin caruurta ayay isku soo ururinaysay shalay ayaan meesha waa nimid dhaawaceeda tii markaa laga qaaday waan weydiiyay dariska maxaa dhacay waxa dhaca la yiri gabadhaasi ilmo yar oo agoona ayuu ninku qori u ku qabanayay oo gurigeeda hor fadhiyay markaasay soo baxday maxaa dhacay ilmaha qoriga ugu qabanaysa war daris baa maxaa dhacay markay tireen qofkii mas'uulka ka ahaa baan ku sheegay tir guriga gargaraacay xabadu ku dhuftay wiilashii guriga ka soo baxay guriga hurday wiilashiina baasbuu ku xidhay kadib iyadii baa la cararayba Muqdisho waxaa ku soo badanaya dilalka askartu u geysanayaan dadka shacabka ah iyadoo bishii hore iyo bishaanba askartu ay dileen dad ku dhow 10 ruux Maxamed Ciise Koona Universal TV Muqdisho